بسم الله الرحمن الرحيم soo dhawaada maanta hadduu ilaahay yiraahdo maalin hore waxaan ka soo sheekeynay referencega waxaa kaloo ka soo sheekeynay styleska kala duwan ee referencega marka maadaama different styles ay jiraan oo la rabo in la qoro mid walbaaba qaasatan waliba marka citation kala joogo iyo marka reference listiga la qorayo citation ku waxa u maleynaa inuu fudud yahay qaarna in la isticmaalo by number qaarna in la isticmaalo maxaa la yiraahdaa author key date ka la isticmaalo laakiin referencega ayaa listiga sida loo qorayo ayaa mararka qaar kood ka leh banaanay especially marka war reference aragtina qortid maxaa yeelay referencega wuxuu ka kooban yahay author name ka wuxuu kaloo ka kooban yahay wax initials ka oo bixin oo ah the first maaragtay letters of maaragtay his first or maaragtay middle name ki iyo title-ki oo ka hadlayay journal-kii maaragtay lagu soo daabacay haduu yahay maaragtay article haduu yahay taariikhda maaragtay maxaa la soo daabacay waxaas oo dhan ayaa volume-ki issue wixii oo dhan aan rabo in la qoro waa in si loo kala hormariyo marka sidee u fududahay marka waxaan rabaa maanta inaan dhaho waay waxaa jirtay loo qori jiray waxaas oo dhan loo qori jiray maxaa la yiraahdaa manually loo qori jiray ayaa jiro oo inta saas loo xifdiyo saas loo qori jiray laakiin maanta waxa lana forget about this ina xifdiso waxaasna ma u baahnin waxa kaliya u baahnaan karna waxa waa styles kala duwan inaad taqaano kaliya magacyadoodii wuxuu marka if you know the style ka laga rabo dad taqaano simply you can maxaa la make just in one click adduunka maanta technology wax badan ka dhig sida daraadid marka maanta waxaan rabnaa sameeyno si referencega loo manage gareeyo oo maaragtay referencega loo sameeyo waxaa jiro saddex software oo caan oo referencega lagu sameeyo mid waxa la yiraahdaa Zotero waa application software ka lagu manage gareeyo sibiya isaga inta badan dawliga joogiyo qolooyinka la midka ayaa isticmaala kan ugu caansan waxa la yiraahdaa IndiNote ku waa software lagu manage gareeyo sina referencega waa mid caana labada marka wuxuu ku kala duwan waxa waa IndiNote ku lacag waaye Zotero inta badan soo free ayaa la helaa kan kale ee aan rabno bal maanta xataa inaad daraasayno waxa la lahaa Mendeley marka isaga waa software management waaye oo software reference management loogu talagalay waaye sida labadan oo kala isaga wuxuu ugu duwan IndiNote ka isagana free waaye macnaha sida Zotero oo kale ayuu asina maaragtay maxaa la free laakiin wax badan ugu duwan yahay waxaan dhan waa arki doona isaga wuxuu ugu duwan yahay kuwan isaga reference management iyo literature search isku yahay kuwan literature search ma laha laakiin wuxuu leeyahay literature search wuxuu kaloo leeyahay waxyaalo kala duwan sida in maaragtay funding loo raadi karo maaragtay research ka qofku uu sameeyo in maaragtay shaqooyin research maaragtay laga heli karo in qofku waxyaalaha uu soo daabacay maaragtay la soo gali karo in groups la sameyn karo hadii for example arday leeyahay oo kale oo team isku xiran oo kale leeyahay teamka waxa la rabaa qofkan wuxuu soo qoray in maaragtay maxaa la isku keeno oo hal meel la isku keeno ayaa la rabaa shaqooyin badan oo laga yaabo inay noocaas tahay ayuu maaragtay maxaa la yiraahdaa qaban kara guud ahaan marka dhinacyo badan laga fiiriyo maanta marka waxaan rabnaa inaan daraaseen hadduu ilaahay yiraahdo sidoo isaga u shaqeeyo ayaa rabnaa inaan daraaseyno oo aan maaragtay ku socdo Mendeleygu usually calaamad noocaan oo kala asaan waa Mendeleygu waa reference management software waa software loogu talagalay in lagu maamulo referencega oo loo heli karo si free oo lacag la'aan loo heli karo isaga si shay aad u qiimo badan marka fiiris maadaama uu yahay wax referencegi oo manual-ka ku dhib ka badnaa xifdiskiisu dhib ka badnaa inaad qorto iska daaye oo ku manage gareenayo waliba free ku helaysid valuable wax kala jiro oo valuable ka sii dhigayo oo wax aad u qiimo badan ka sii dhigayo waa maxay marka la sameeyo research-ka iyo maaragtay papers ku xalin midka sababtu waxa wuxuu ku kaydinaa reference-yadaada ku kaydinaa figures-ka iyo sawirada aad rabtid inaad kaysatid ku kaydin karaa all PDF-ka iyo waxyaalaha aad rabtid inaad kaysatid oo ku kaydinaa just in your computer-kaada asoon space ka cunin ayuu ku kaydina space ka cunin macnaheedu waa inaad folder gooniyo ku save gareysato yani waxa kooda inaad Mendeley marka isticmaalaysid isaga dhexdiisa la dhexgeliyo waxa soo dhan maaha inaad maaragtay maxaa la yiraahdaa space computer-kaada kamid oo ka cunay ma Mendeleygu wuxuu kaloo la shaqeeyaa oo aad u fiican yahay inuu la shaqeeyo Microsoft Word sababta Microsoft Word mudnaan loo siinayo maxay tahay sababta waxa Microsoft Word ku waa meeshii wax lagu qorayo
qofku markuu maaragtay research paper qorayo Microsoft Word ka loo qoraa marka Microsoft Word kana wuu la shaqeeyaa si ay u soo geliso inta ka citation kaada iyo bibliography ama reference maaragtay listigaada just maaragtay maxaa la yiraahdaa muskil hal mar click adoo ku dhahdo kale marka maxaa ka baranaynaa Wes Mendeley waxa waaye waa reference management software oo si free ah loo soo heli karo marka waa kaas waa maxaa la qeybaa Mendeley waa free academic software waa software oo academic yani loo adeegsado waxyaalaha maaragtay maxaa la yiraahdaa cilmiyeed loo adeegsado cross platform macnaheedu waxa waaye waxa loo adeegsan karaa Windows-ka waxa loo adeegsadaa Mac Linux-ka mobile-ka naftirkiisa waa loo adeegsan karaa applications laakiin inta badan mobile-ku wax badan oo maaragtay maxaa la yiraahdaa ay sheegeen ugu duwan yahay kuwan sida kan oo kale markuu yahay sidaan oo kale waa desktop Allah Mendeley kan oo kale to way maaragtay maxaa la qaybaan oo arki doona dole mar waxa waaye sidaan oo kale waxa waaye markuu yahay web macnaheedu waxa jiro Mendeley desktop Mendeley web iyo Mendeley mobile saddexdan loo kala qaybay Mendeley desktop waxa waaye inaan software-ka Mendeley-ga soo dejisato oo computer-kaada ku install gareyso marka computer-kaada ku install gareyso kadibna aad gashay at that time saas hadii ay tahay markaas oo kale wuxuu noqonayaa desktop Allah marna waxa waaye ma soo dejinay si hadaan soo dejin marka soo isticmaala waxa uu isticmaalaa Google-ka inta galo ayaan page-ka Mendeley-ga gala page-kaas aan account ka furna account-kaygaas dhexdiisa ayaan maaragtay maxaa la ku maaragtay ku isticmaala yani waa sida maaragtay maxaa la yiraahdaa ay sheeg application sida turahan Facebook oo kale Facebook waa marna web waaye marna desktop waaye su'aalaha hadii application-ka intaad maaragtay maxaa la ay sheeg Facebook application-ka hadda inta soo dejisto aad app-ka soo dejisay Facebook ka dhex gasho wuxuu ku noqonaa markaas oo kale desktop hadii maaragtay computer oo yahay mobile yahana mobile ku noqonaa dama hadii laakiin mararka qaar dadka qaar waxay sameyn karaan ayagoon Facebook dhan soo dejin ay Google-ka ama Chrome-ka intee kaciyaan oo Facebook ka sii kaciyaan ay account-kooda user-ka sii gashanayaan markaas oo kale maxaa la dhahaa markaas oo kale waxa la dhahaa web yani labadaas oo kale marna waxaan dhahnay application-ka soo dejinay kadib aad ka galaysaa Facebook marna application-ka adoo soo dejinin ayaad maaragtay maxaa la inta Google-kii maaragtay ka kaciso oo Facebook ku qorto ee Facebook-gaas ka sii dhex galaysaa adoo maaragtay browser-ka isticmaalay ama maaragtay maxaa la lahaa Chrome isticmaal ama maaragtay maxaa la yiraahdaa Opera isticmaal ama maaragtay maxaa la lahaa sheeg maaragtay Badi isticmaal nooca doontid isticmaal kaas oo kale uu ku iman kara marka qaybaan dhinacaas laga hadla Mendeley marka dhowr shaqo waa lagu qabtaa shaqooyinka inta badan ugu caansan ee lagu qabto waxa kamid ah reference management waana kan ugu muhiimsan shaqooyinka ugu muhiimsan waxa kamid ah inuu reference management yahay oo reference-ka loo manage garay shaqada labaad waxa waaye literature search waxa uu jeedaa in literature laga raadin karo sidoo aan u soo mareen in literature-ka laga raadin karo ama Google-ka ama laga raadin karo maaragtay Google Chrome-ka ama laga raadin karo PubMed-ka markuu health-ga waxyaalaha dhan nooc meel kale oo literature laga raadin karo meesha labaad waxa waaye sidoo kale wuxuu ku tusi doonaa sidoo kale meel aad dadka ku tusi karto waaye publication waxa ka wada hadii research aad sameyso oo research-kaada soo publish gareyso maaragtay Mendeley-ga user-ka meesha aad ka leedahay soo gashan kartaa publications-ka aad sameysay si loo arko waxa kale waxa waa Mendeley-gu ku siinaa inaad abuuri karto ama aad ku beeri karto groups jiray inaad group cusub inaad sameysan karto ama mid jiray aad ku beeri karto very useful waa groups-ka si maaragtay aad isku wada shaqeysaan oo maaragtay hal library hal maktabad ay ka wada dhaxeyn karto adina adoo computer-ka haysta qofka kale computer-kiisa qof walba soo computer-kiisa haysta ayaa hadana hal library in ka dhaxeena oo halkaas library maaragtay maxaa la yiraahdaa aad soo wada galeysaan oo waxyeel aad rabtaan soo gelin kartaan mid kale waxa waaye careers shaqooyin lagu soo bandhigaa inta badan shaqooyin ama ha noqdaan shaqo academic ama ha noqdaan wax jaamacadii la xiriira ama ha noqdaan maaragtay maxaa la yiraahdaa inta badan research waxyaalaha la xiriirayaan mid kale maxay fundina laga raadiyaa inta badan waxa jiro laba nooc ah fund loo sameeyaa research waxa jiro la soo bandhigo oo loo research kana organization-ku ama maaragtay hay'adu soo bandhigaan oo loo research kana la rabaa research kan maaragtay fanka ayada bixinaysa qof sameeyo la raadinayo at that time waa gooni iyo waxa kale oo jiro maaragtay inaad maaragtay research-kaada inta soo dhigato aad dhigi karto yaa ugu fan gareenayo mararka qaar kood la karo ayadana waa la sameeyaa haduu yahay wax valuable Mendeley-gu waa great shay weyn waaye macna shay maaragtay maxaa la yiraahdaa muhiim ah waaye sababta muhiim ka dhigaysa waxa waaye
waa repository waxaa loola jeeda waxaa waaye waa yacni meel wax lagu kaydsan karo oo maaragtay reference informationkaada ku noqon kara kayd iyo maaragtay lagu kaydin karo waxaa kusoo dari kartaa papers wuxuu ula jeedaa yacni articles iyo pdf iyo waxyaalaha soo geli kartaa librarygaada adoo soo gelinaya pdf fileski kadibna computerkaaga kugu kaydsanaa ama inaad maaragtay maxaa lahaa ka raadin karto maaragtay other locations kale inaad wax kasoo heli karto for example materialska u baahan tahay inaad kusoo darto librarygaada waa maaragtay maxaa lahaa kusoo daraysaa kadibna uu ku kaydinaa in maaragtay cloudku yacni waa meel wax lagu save gareeyo maaragtay ku ama inaad maaragtay kasoo heli karto meel walba u baahan tahay macnaha si maaragtay maxaa lahaa u akhristo computerkaada ama mobilkaada adoo saaran xitaa by even your bus on the bus adoo saaran maxaa computerku inta badan wararka qaarkood uu dhib badan yahay in la qaado mobilka ka fudud mobilka marka wuxuu ku ogol yahay inaad wax ka akhriso inta badan si waxba laguma daro waxba ma la soo geli karo laakiin waxa la baa laga akhrin karaa la computerka access ka weyn kaasoo leeyahay macnaha kaas marka maanta waa bilaabayna how to start you will marka si aad u bilowdo Mendeley waxa aadaysaa meeshan maxaa lahaa look waxa lahaa mendeley.com inaad Google ka tagto intaas aad qorto oo kale ayay maaragtay maxaa la yiraahdaa ii sheeg tagaysa okay let's come here inta imaanina marka waxa leenahay inta ku qoraynaa marka waxa leenahay waxa waaye Mendeley waxa leenahay waxa waaye mendeley.com intaas ina qor mendeley.com intaas marka qorto click just one click maaragtay maxaa la ku dhufo si uu kugu soo baxo oo ku geeyo maxaa la yiraahdaa page-ka maaragtay maxaa la yiraahdaa Mendeley oo leeyahay si uu ku geeyo okay just meeshaan imaanayna marka maxaa la qeybaan soo arin waxa baa igu jiro raal noqdo waxaan rabaa inaan ka saaro kan soo noqonaya rabaa inaan tusiyo marka qofku uu soo galo qeybahan soo marka aad soo gasho marka wanan maaragtay maxaa la yiraahdaa akoon aadan hore u lahayn ama wanan ku sameysnayn oo aad cusub tahay sidaan oo kale ku noqon inta waxa ku qoran Mendeley soo maxaa la yiraahdaa ii sheeg something like this inta waxa ku qoran waa kale halkooda inta waxa ku qoran saddex xaba inta ku qoran marka inta waxa waa sign in goormeel sameeya hadii akoon aad leedahay oo hore aad u sameysatay create hadii aadan lahayn internet download maxaa loo jeedaa download waxa loo jeedaa app ka soo dejiso yani Mendeley webka ina soo dejiso waa kaas Mendeley maaragtay desktop ina soo dejiso intaas oo dhan waa kaas waxyaalaha maaragtay maxaa lahaa so you can join maaragtay maxaa lahaa you can career raadi kartaa daas meeshaan leenahay network guys oo sameeyay referencigi maaragtay maxaa la qeybaan all of this waa kaas inta imaanayna marka laba shaqo hal mar isku qabanayna inta imaanayna waxa sameeynayna in soo download gareeno app okay download ku dhufanayna download marka ku dhufano marka isaga nageenaya nooca aan maaragtay maxaa la yiraahdaa u baahanahay si ay soo doon soo marka soo doon waa kan marka inta ku keena soo inta ku dhufo ku leeyahay hadii ay isticmaalayso Windows 7 iyo 8 iyo 10 hadii ay isticmaalayso macna okay hadii ay isticmaalayso maaragtay maxaa la yiraahdaa ii sheeg maaragtay maxaa la yiraahdaa Mac inta ku dhufo hadii ay isticmaalayso maaragtay maxaa la Linux inta ku dhufo all of this waa kaas maxaa lahaa qeybahan way kala duwan soo anaga maadaama ay isticmaalayno window maadaama aan rabin inaan isticmaalo inta ku dhufana qeybahan intii wax kale oo baahan tahay meeshaan oo kale laga yaabo inaan ku arko soo waa kan marka wuxuu leeyahay meel ku save garee waxa ku save gareena meel tusaale waxa ku save gareena documents okay waxaan leeyahay marka okay soo waa wada marka shaqada intuu shaqada wada marka kora u laabanayna waxa meesha hadda ku laabanayna meeshaan waxa ku qoran create account asi sameeysanayna marka soo account ka sameeysanay create account si u sameeysano account cusub oo maaragtay maxaa la yiraahdaa aan ku isticmaalno oo maaragtay noo keeyo this okay so it's going maaragtay shaqadan way noo dhamaanaysaa soo markay noo dhamaato waa ku install gareysanayna qeybahan soo inta imaanayna marka inta marka imaato marka meeshaan rabnaa inaan maaragtay maxaa lahaa soo geliyo hadoo kale ani waxa igu jiro midkaan ay igu jiro soo ma sameyn karo shaqo kale ma sameyn karo laakiin inaan inta ku dhufto aan dhahnaa sign in with different account hadoo wax kugu jireen meeshaan
hadda laakiin doon wax kugu jirin marka aad emailka iska gasho qeybahan kaas ka dhiganta laakiin meesha oo ina geenayo oo kala rabaa inaan tusiyo adinka marka aad maaragtay soo gashaan meeshaan oo kale ina keena usually meeshaan oo kale meeshaan marka emailka gasho marka salahan inta email gelina okay okay sasa marka maxaa la sorry okay saan oo kale u soo geliyay laal soo xalahay continue isaga hagaaya so step by step ayaan la soconaa waxa aan joogana waxa waaye registration soo magac u bixiyo dhaha soo magac baxso soo magacayga baxsana okay magacayga waa ka soo baxsaday magaca last name ka inta ku qornaysa last name waxa magaca kugu dambeeya kadibna password u yeelna soo password u yeel ala for example okay register ala marka hadii mid kale ah walaad waa ka saayla kan register so maxaa dhahay registration ka successful one very good continue to Mendeley okay continue ala hai inta kale keeno wuxuu dhahay role kaada muxuu yahay role so maxal meeshaan ku qoranaysaa maaragtay maxal la qeybahan data tusaalahan hadaa tahay arday student bachelor student oo doctoral student master student bachelor for example inta imaanay filliga barata maxaa barata maxaa doon maxaa barata macnaha waxa abarata muhiim oo ogaad sababta muhiim u tahay waxa waa Mendeleygu yani article-ada la qoro hadaa dhahdo arts dhahdo article artist-ku inta badan mudnaanku siina asoo ku keenkeeni doona ku dhigi doona article-adana la qoray article-adana la qoray so very important to ay maaragtay inaad qorato meesha aad maaragtay maxaa la waxa barato so for example waxa la yahay so psychology pharmacology toxicology da barato nursing and healthy professionals for example neuroscience medicine iyo maaragtay maxaa la dentistry immunology environmentalka okay qof walba marka wixii aad xiiseynayso diyadan maaragtay maxaa la lahaa marka qaarkood waxa laga yaabaa inaadan helin waxyaalihi aad rabtay so for example medicine and dentistry for example so kala dhah hadaa u baahan tahay maaragtay profile xasan karta so hadaa marka continue hadii aad u baahnayn waxaan inay buuxiso meeshaan aad taabanaysaa skip ka qoran tahay si aad maaragtay uga baxdo qeybaan so waa kanay marka waxaan oo dhan uu sameeyay waa maaragtay maxaa la yiraahdaa oo ii keenay maaragtay maxaa la qeybaan waxa la inta inuu isoo mandhigayo qeybaan dad si oo baahanay inuu follow gareeyo oo ka soo dhamaatay ma u baahnay waxaan oo dhan meeshaan maaragtay maxaa la ii joogo meesheedan aan maaragtay maxaa la yiraahdaa ii sheeg joogo dib u laabana marka waxaan dib ugu laabanaa Mendeleygi meeshaan dib ugu laabanaa waxaan leeyahay kan ku install gareey oo kana inta tagay double click dhig okay waxaan leeyahay yes so it's going على next على agree next okay على هاي so it's going shaqadaas asana oo ii wadi doona maaragtay maxaa la qeybaa so inta marka aan si fiirino inta shaqada noo wado marka meeshaan dhowr wax ku qoran ku inta waxa ku qoran inta ay maad horto bosseska waxyaalaha la soo dhigay inta badan oo Mendeleygi maaragtay soo dhigaan citation and updates ayaa inta ku qoran maaragtay maxaa la lahaa hadii aad maaragtay maxaa la lahaa leedahay inta waxa ku qoran article-ada ku sheegay macnaha article macnaha waxa waxyaalaha oo ku soo mandhigayo qeyb ahaan kaas oo kale ayuu maaragtay maxaa la ku sheegay intan waxa wixii cusub la daabay يعني wixii cusub la daabay waxaan waxay ku xiran tahay marka isticmaal bilaawid maxay marka isticmaal bilaawid oo aad article gooniye for example hadii aad wax ka qoraysid maaragtay wax ka qoraysid maaragtay ANC hadii wax ka qoraysid so article-ada ANC ga inta badan ku keeni doona marka aad bilowdo marka meeshaan waxa la fed okay meeshaan waxa la lahaa library meeshaan library-gu waa meesha ugu muhiimsan waa meesha waxa dhan ay ku keedsan yihiin waa maxaa la yiraahdaa ay sheeg waa library-gu waa kaaso
meesha waa meesha ay maaragtay waxa oo dhan maaragtay ay ku kaydsan yihiin hadda dabcan waxba kuma qorna laakiin marka hadda waxba maanan soo gelin maxaa la qaybaan laakiin marka aan wax soo gelino ayaa maaragtay maxaa la yiraahdaa arki doonaa qaybaan inta suggest inta badan waxa waa hadii waxay jiraan wax gooniyo oo qofka iyo waxaas loo soo jeediyay goonaam inta groups meesha waxa waa groups waa meesha waxa laga abuuri karaa maaragtay maxaa la yiraahdaa ii sheeg groups ee maaragtay maxaa la ka abuuri kartaa ama follow gareyn kartaa tusaale group kan oo kale waa follow gareyn kartaa 131 qofooda ku jiro group kan oo kale faculty of batch 8 maaragtay maxaa la faculty of Hello oo la university 68 qof ku jiro waxaana dhan waa kan for example covid review mark system container waxaana dhan maaragtay maxaa la ii sheeg public health invest waxaana dhan waa ku beeri kartaa groupida laba nooc dhowr nooc ay isku jiraan qaarna waxa waaye waa maxaa la yiraahdaa waxay u baahan yihiin inta ku dhufato qofka adminka oo soo aqbalo qaarna caadi waaye maaragtay maxaa la inta that set career ka waa kan meeshan for example hadii jiraan wax shaqooyin oo maaragtay la soo bandhigi karo qaybahan waxa kale intan waxa waa sidoo kale funding ka sana okay career ka waa kan waxa waaye inta waxa ku qoran get job alerts ina heshid shaqooyinka maaragtay ina heshid ina CV gaada inta maaragtay maxaa la soo gelisid waxyaalaha soo ka soo covid-19 maadaama uu jiro waxyaalahan ayaa lagu soo dara qaybaan funding kana waa kan sana hadii aad rabto adaan shaqo soo dhigi kar meeshaan taada post job hadaad adaan naftirkaada shaqo soo dhigi kar hadii aad raadinaysid for example jaamacadaha oo kale laga faa'iideysan karaa marka qaarkood ay rabaan dad for example experts iyo professoro adduunka kala jooga hadii loo baahan yahay mar qaybaan okay so ayagana maaragtay maxaa la waa kari so fields kala duwan waa so fielidana ku dhulfanaysa hadba mid gooni waa kare so inta institutionadan mid walba oo kamid ah wuxuu maaragtay sameeynaa funding ayuu sameeynaa qaybahan so waxaan soo celinaysaa fedkan inuu soo celiyo raadnoodo oo dib ugu laabanina soo shaqada uu noo dhameystir marka waxa leenahay finish okay let's say finish so marka finish dhaan marka isaga ayaa noo soo bandhigayo oo noo soo kacay laga yaabaa inuu desktop-ka geeyo okay so it's just coming isaga imaanaya marka soo kaco ayadana shaqo kale ayaan qabanaynaa marka uu maaragtay maxaa lahaa ee sheeg oo soo kaco okay marka soo kaco marka kan maxaa la yiraahdaa waxa laga yaabaa inuu yahay mid okay halaya kan inuu yahay mid hore oo aniga aan maaragtay maxaa lahaa ee sheeg lahaa so waxa rabaa inaan kan ka sameeyo raadno kana ka saaro meesha si aan inii tusiyo qaybaan so halana sign out si aan u gashano kana si midka hadda u gelin marka idinka soo kacaysan saan oo kale inay noqon doona maadaama user hore ay isticmaalay sidaan oo kale inay noqon doona so meesha marka waxa gelinaysaa email-kaadi hadeeti aad gelis email-ka hadeeti aad webkan gelisay email-ka aan webkan gelisay ayaa inta gelinayna macna okay so for example waxa geliyay kan oo kale okay okay intana password-ka gelinay okay marka inta gelisid meeshaan waa inaad ku dhufato khasabo stay sign hadii computer-ka adiga aad leedahay iska jir laakiin hadii aadan computer-kaas lahayn stay sign ha isku dhig macnaheedu waa maxay stay sign waxa waaye weligiis ha igu jiro ilaa aniga aan ka baxo ha igu jiro hadii aan laakiin inta ku dhufan hadda marka isticmaasho hadii aad close dhahdo close-kaas oo ku joogsama marka la soo kaciyo haddana wuxuu kaaga baahan yahay soo gelis hadii la computer-ka ama mobile-ka ama waxa isticmaalaysa adiga aad leedahay stay sign ina dhigi kartaa stay sign waxa waa ilaa log out laho oo laga saaro ama sign out laho ma ka baxayo ku jira hadii aad stay sign dhahdo hadaadan dhihinna hadda waa isticmaali kartaa laakiin marka aad close dhahdo shaqada iska soo xirto aad gabagabayso saasoo san aad ku yahay macna marka inta ku dhufanay inta marka ku dhufano laba option ah inta igu soo baxay sign in iyo register waxa loogu tala galay hadeeta shaqada soo qabanay dabcan hadeeta soo register gareynay dabcan hadaadan hadeeta soo register gareyn inta ka register gareyn karto mushkilad ma laha leen hadda laakiin waxa leenahay soo register gareysan waxa leenahay sign ayaa leenahay maxaa la qaybaa okay marka soo waxyaalaha waxa iska dhaha close
nakis dan waxaa leenahay nakis dan waxaa leenahay close waa kale meeshaan ay joogaan okay خلاص saddex waxyaalooda marka saddex daaqadooda inta iga furan marka daaqadan waxaa loogu talagalay meelihii folderradaadi waa meeshaan waxaa soo galaya wixii documentiga soo galisoo dhan kuwa cusub hadda ku soo dartay kuwa akhrisatay mar dhow waxyaalaha favorite-ka samayso favorite-ku waa kan xidigtaas daa saarto inta waxaa waa folder cusub aad samaysan kartaa waxaa dhigi kartaa waxaa la yiraahdaa maaragtay maxaa la maaragtay article-kayga maaragtay maxaa la ama maaragtay maxaa la yiraahdaa manuscript-kayga ayaa maaragtay maxaa la inta igu jiray for example manuscript ama waxaa dhigi kartaa wax kale ku darso waxaa dhigi kartaa ANC for example so inta folder loogu talagalay inta groupka meesha laga abuuro waa marka la arkayna aydan hadii la yiraahdo qaybaha intaas inta waxaa loogu talagalay meeshaan waxaa soo galayo wixii aad soo geliso hadii meeshaan aad soo geliso article wuxuu sameeynaa article-kaas inta wuxuu ku qoraa PDF hadii for example calaamadii PDF ku inta ku muujina hadii article-ka PDF aan soo geliso qorayga ama qorayaasha qoro inta ku muujina ciwaanka inta ku muujina oo title-kaas oo wato sanadka la qoray meesha lagu soo daabacay oo maaragtay maxaa la qeybaan iyo xilliga adiga ku soo dartay aadid waxa xilliga ku soo dartay salaada hadda time-ka waxa waaye for example aan joogno 1 maaragtay 27 for example so hadda wax soo geliso 127 oo kaaga dhiga xilliga aad ku soo darto waa kaas intana hadii intana waxa waa detail waa inta notice waa intana content waa yani article-ka inta aad ku soo darto marka kali ku dhahdo inta aad ku dhufato inta wuxuu ku sameeynaa arintii oo faahfaahsan macna okay meeshan user-kaadi waa meeshan waxa laga raadiyaa maxaa laga raadiyaa article-ada inta kugu jiro hadii tusaalaan aad kala aqooweyso laakiin qofka magaciisa daa taqaan inta ku dhufanay magaciisa raadinaysa macna hadii aad title-ka taqaano title-ka raadinay hadii tusaalaan 500 oo waxyaalood inta kugu jiraan 500 oo waxyaalood inaad kala raadiso way dhib badan tahay soo inta laga raadiyaa macna inta this is very important kan waa meel kamida meelaha ugu muhiimsan sign maaragtay sign alla calaamadan waxay ka dhigantaa waxa waaye ugu laba waxa hadda saad kan hadda isticmaalayna maxaa lahaa Mendeley desktop kan ayaa waaye Mendeley web marka Mendeley web iyo desktop hadda wax soo galiyo meeshan si waxa aad soo galiyo webka oo ugu darsoomo waa ina calaamadan taabtaa calaamadan marka waxa ka dhigantaa refresh qawa kale ka dhigantaa marka si waxa uu kugu save gareey qaybaan inta waxa kugu qoran file so you see file-ka add folder wide folder entry import maarto xalaas quiet mark sanad quiet kana ina ka baxdo calaamadan la mid tahay close-ka kana saynoodo inta waxa ku qoran edit waxa ku qoran waxyaalaha undo redo waxyaalaha aad taqaanaan ku qoran inta waxa ku qoran view marka inta tool ku qoran inta help all of this waa kaasay help gaar ah inta kale kartaa oo maaragtay waxa la qoran hadii maaragtay u baahan tahay hadaa maaragtay u baahan tahay inaad wax soo reset gareys hadaa dib u celinaysid privacy wixii oo dhan meelaha waan ka qaran kartaa marka intaas waa inta aan maaragtay bal rabno inaan qaybteena ku sameeyo so intaan waa sida muxuu yahay Mendeley maxaa la lahaa sheeg sidee maaragtay maxaa la lahaa sheeg loo soo download gareeyaa sida loogu install gareeyaa iyo sidee account-kii cusub loo sameystaa so qaybteenan inta ku joojinayna hadii la yiraahdo